bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan falanqeyn gaar ah oo aan ugu talagalnay daawadayaasheena ku taxan Boston News. Falanqeyntaasi waxay ku saabsan tahay bariga dhexe iyo hardanka culus ee ka dhex aloosmay Mareykanka iyo Iiraan. Mareykanka ayaa maalin ka hor wuxuu dilay Qaasim Sulaymaani oo qaabilsanaa howlgallada Iiraan, kaasi oo lagu tilmaamay udub dhexaadkii Iiraan ee bariga dhexe. Qaasim Sulaymaani ayaa ahaa nin aad iyo aad u firfircoon, taliska dalka Iiraanna waa aad iyo aad uga dambeyn jireen, kaasi oo sababtay dilkiisa kadib in ay iska soo dabayeeraan hadallo badan oo looga xun yahay dilkaasi uu Mareykanku dilay. maanta dad aad iyo aad u badan ayaa iskugu soo baxay caasimadda Ciraaq ee Baqdaad si ay uga qayb qaataan sida loo sameynayo abaanduulihii militariga Iiraan Qaasim Sulaymaani oo Khamiistii lagu dilay duqeyn ay Mareykanka fuliyeen. Qaasim Sulaymaani ayaa ahaa ninkii qaabilsanaan jiray howlgallada Iiraan ee bariga dhexe, isla markaana waxay Iiraan wacad ku martay in argoosi xanuun badan uu sugayo dambiilayaasha ka dambeeya weerarka lagu dilay Qaasim Sulaymaani. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Javad Zarif ayaa weerarkaasi ku tilmaamay ficil argagixiso caalami ah. dadka maanta iskugu soo baxay Baqdaad ayaa waxay xusayeen 3 maalin oo baroordiiq ah oo loo sameynayo Qaasim Sulaymaani. meydkiisa ayaa lagu wadaa in loo qaado Iiraan si loogu aaso magaaladii uu ku dhashay ee Karmaan. dadka iskugu soo baxay Baqdaad waxay sidoo kale baroordiiq u sameynayeen Abu Mahdi al-Muhandis oo ahaa hogaamiyaha kooxda maleeshiyada Shiicada oo ka jirta dalkaasi Ciraaq. waxay dadkan ku luuqeynayeen Mareykanku ha dhinto, isla markaana waxay ruxayeen calanka dalka Ciraaq iyo kan Iiraanba. telefishinka dalka Ciraaq ayaa sheegay in duqeymo kale ay ka dhaceen Ciraaq 24 saac kadib dilkii Sulaymaani. wardiyo militariga Ciraaq ayaa waxay wakaalada wararka ee Reuters u sheegeen in 6 qof lagu dilay duqeynta cusub ee ka dhacday gudaha dalkaasi Ciraaq. afhayeen u hadlay militariga Mareykanka ayaa beeniyay in isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ee gobolka ku sugan ay mas'uul ka yihiin weerarada la sheegay inay Ciraaq ka dhaceen. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhankiisa sheegay in Mareykanku uu dilay hogaamiyihii sare ee militariga Iiraan Qaasim Sulaymaani si uu u joojiyo dagaal ee uusan doonayn inuu mid labaad uu bilaabo. maalin ka hor ayay ahayd hogaamiyaha Iiraan Ayatollah Ali Khamenei uu ku wacdiyay inay sameyn doonaan argudasho cad si loogu argudo dilkii Sulaymaani. ninka cusub ee bedelaya Qaasim Sulaymaani ayaa isna ku baaqay inay u argudi doonaan hogaamiyihii ugu taliska fiicnaa ee bariga dhexe ka talinayay. Qaasim Sulaymaani ayaa la filayaa maalmaha nagu soo fooda leh in lagu aaso magaalada Karmaan ee wadankaasi Iiraan. haddaba daawadayaal waxaan idinka codsanayaa inaad nagu soo biirtaan oo aad subscribe, like, comment aad nooga bixisaan.